بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaal halkani waa Udgoon Media oo aad kala socon kartaan channelka YouTube-ka ee Udgoon Media iyo Facebook page-keena udgoonu.com. waa maalinimo sabti ah taariikhdana ay ku beegan tahay 4 bisha 2 2018 kuna soo dhawaada barnaamijka waxbarashada oo hadahan oo kale aad ooga barateen Udgoon Media. waxaa barnaamijka alaaba idin soo diyaariya idinla soo tagiya aniga oo ah Qaasim Nuur Maxamed Aaja, iyadoo mararka qaar nagala qayb gasho wariye Anish Maxamed. barnaamijkeena waxbarashada qaybtiisa 7 waxaan oga hadlaynaa daraasad lagu sameeyay waxbarashada Soomaaliya xilligii burburka kadib ee dowladihii ku meel gaarka ahaa iyo waxyeelada dowlad la'aanta darteed soo gaartay tacliinta iyo manhajkii dalka aasaasiga u ahaan jiray. dhegeystayaal, cilmi baaris uu sameeyay macadka daraasaadka siyaasadda ee Heritage ee uu fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho 2015 ayaa ka qaybgalayaashii daraasadu tilmaameen caqabadaha ugu waaweyn ee haatan hortaagan nidaamka waxbarashada ee dalka, iyagoo tilmaamay isdhexyaaca nidaamyada waxbarasho iyo kala duwanaanshaha manhajyada dalka ka shaqeeya, taasi oo caddeynaysa kala duwanaan muuqata oo u dhexaysa nidaamka waxbarasho iyo maadooyinka laga dhigo dalka amaba iskuulada dalka. haddii aan faahfaahinno nidaamyada waxbarasho ee dalka ka jira ayaa waxay kala yihiin nidaamka 4-4 ah ee 4 sano oo heerka dugsiga hoose, 4 sano oo dugsiga dhexe iyo 4 sano dugsiga sare oo ay iskuulada badankoodu isticmaalaan, halka qaarka kalena ay isticmaalaan nidaam ka duwan oo ah 6-3-3. waa 6 sano oo dugsiga hoose ah, 3 sano oo dugsiga dhexe iyo 3 sano oo dugsiga sare ah. waxaa kaloo lagu qeexay cilmi baarista kala duwanaansho tirada maadooyinka lagu dhigo iskuulada iyo in ay dalka ka jiraan tiro manhajyo oo dibadda laga soo dhoofiyey, inkastoo aysan caddeynin inta ay yihiin tiradooda saxda ah, balse qiyaas celcelis ahaan ee uu sameeyey macadka Heritage ayaa gaaraya ilaa iyo 10 manhaj oo laga soo dhoofiyey 10 waddan oo kala duwan, iyadoo manhajka Kenya iyo manhajkii hore ee waxbarasho ee dowladii militariga ay yihiin labada loogu isticmaal badan yahay dalka oo idil. dhegeystayaal, mar wax laga weydiiyey xaaladda waxbarashada dalka ida sida ay aragtidoodu tahay ayaa waxay sheegeen inaysan ku faraxsaneen xaaladda cakiran ee nidaamyada waxbarashada Soomaaliya, iyaga oo ku baaqay in laga hortago burburka tacliineed ee dalka lana hagaajiyo manhaj matala qaranka Soomaaliyeed iyo maadooyin laga dhigo guud ahaan dalka, iyaga oo sababta uga dhigay in ay si fiican ula socdaan dhibaatooyinka ka imaan kara manhajyada waxbarasho ee dalalka kale laga keenay, taasi oo qaar ka mid ah ka qaybgalayaashu ay ku doodeen inay waqtiga fog burburin karto waxbarashada iyo dhaqanka dalka. dadkii daraasadda ka qaybgalay
ma sheegin oo keliya muhiimadda ay leedahay in la dhiso manhaj qaranka uu yeesho, balse waxay ku dareen oo ay si faahfaahsan u sheegeen qaabka loo baahan yahay inuu noqdo manhajka dalku uu yeelanayo. dhegaystow, macallimiinta ka qayb galay cilmi baarista amaba ka qayb qaatay ayaa waxay ahaayeen shaqsiyaad waxbarashadoodu gaarsiisan tahay heerka shahaadada jaamacadda ee bachelorka. ha yeeshee in yar oo ka mid ah ayaa bartay maadooyinka la xiriira waxbarashada iskuulada. intooda badanna ma lahayn khibradda iyo tababarka macallinimo ee looga baahan yahay xirfad ahaan. taa micnaheedu wuxuu noqonayaa in ay fasalladu wax ka dhigayaan macallimiin aan lahayn xirfaddii iyo tababarkii looga baahnaa. haddaba daraasadda ayaa sidoo kale muujisay inay jiraan in iskuulada qaarkood ay joogaan macallimiin qaatay tababar ay bixiyeen dallado la sameeyey dagaaladii sokeeye kadib, balse uusan ahayn mid ku filan amaba daboolaya arrimaha muhiimka ah sida aqoonta looga baahan yahay in ay helaan macallimiinta dhigaya iskuulada. dhegaystayaal, qodobka ugu dambeeya ee barnaamijkeena waxbarashada, macadka Heritage ayaa sheegay ujeedada cilmi baaristu in ay tahay in si habaysan loo soo bandhigo caqabadaha waaweyn ee dalka soo wajahay xilligan oo laga gudbay marxaladii ku-meel gaarka ahayd. dhegaystayaal, waxaa intaasi nagu dhammaaday barnaamijkeenii waxbarashada qaybtiisii 7 oo aan maanta ku soo qaadanay daraasaad lagu sameeyey waxbarashada Soomaaliya xilligii burburka kadib ee dowladihii ku-meel gaarka ahaa iyo waxyeelada dowlad la'aanta darteed soo gaartay tacliinta iyo manhajkii dalka aasaasiga u ahaan jiray. waxaa barnaamijka idinla socodsiinaya aniga oo ah Qaasim Nuur Maxamed Aaja. tan iyo intaan dib ugu kulmayno barnaamijkan kiisa xigo, waa Bahda Udgoon Media oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.